بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan maanta ka warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo beyj ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta beyjajka uguba madow marka taariikhda muslimka oo dhan laga warramo beyjajka ugu adag ee runtii qof muslimi inuu ka warramo ay dhibayso beyj ka midaan ka warrami doonaa beyjka warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalano dad muslimiin oo la laayay ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood laakiin danta aan ka leenay waxa weeyaan lilcibra inaan isweydiinno maxaa halaagga intan leeg keenay maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay waayo fi taariikhi alislaam waa markii koowaad ee caasimaddii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka talinaysay min mashriqi ilaa maqribi ay hoos imanaysay waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado waxaynu geli doonnaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay ka warrankiisuna uu adag yahay laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo waxaynu joognay dowladdii tataarka oo uu qabsaday ninuu awoowiyey jinkis khan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay saddex nin oo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum lo odhan jiray midna uu eeshiyada fog u dhiibtay siiba jina iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dowladdii dunida ugu xoogga badnayd ama ugu weyneyd ee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan taarikhyahanada muslimiintuna hoolaako bay qoraan halaagu ama hoolaako kaad tidhaahdaba waa saddexda nina walaalaha ninkii ugu yaraa waa nin runtii ka telinayay markaa dowla alkhawarzimiya dhulkii ay ka telin jirtay siiba bershiya ama dhulkii iiraan la yidhaahdo iyo waxa ku ag wareegsan weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun waataynu nidhi khaankana raggaa la yidhaha khaatuunkana dumarkaa la yidhaha waa amiirad tagas khaatuun la yidhaahdo oo iyana masiixiyada markaa boqorku hooyadiiba masiixiyada ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda ninka kani siduu khilaafada islaamiga u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaay oo dhan isku dayay inuu muddo sameeyo weeraruna aan iska qaadin laakiin tijaabiyey inuu tamhiid hordhac tiro badan le u arrintaa u sameeyo hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo 5 sannadood uu ka shaqaynayey 649 ayaa la soo diray ilaa 654 hijiriyada 5 sannadood wuxuu waday diyaargarow isagoo bershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaargadow waday waxay dhahdaan nimanka taariikhda qoraa diyaargarow buu sameeyey 4 meelood ku saabsan kow wuxuu diyaargarow ka sameeyey bay idhaahdeen infrastructureka ama albinya taxtiya oo ah logisticska waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahan yahay oo dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey waddooyin isku xidhan min ciraaq
ilaa China wadooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay wadooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo Tajikistan iyo Afghanistan iyo Faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay wadooyinka uu sameeyay webiya dhulka mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridge ama jisr dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yahay dhamay ay ka talaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyay wuxuu kale u dhigay ciidamo ilaaliya wadadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logisticskiisa oo dhami muwaasalaadkiisa yaani ciidanka taakulaymihiisa oo dhami dhulka ay marayaan cidii ilaalin lahayd buu sameeyay wuxuu samaystay bay dhaadan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyada waaweyn la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab Chinese-ku ay samayn jireen iyo dhulkaas iyo lagu garaaco oo markaas lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo China ka keenay ilaa iyo Baghdad duleedadeeda uu keenayay wuxuu sameeyay dhulka wadooyinkii uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeeda wuxuu ka ilaaliyay xoolada dhaqdaan iyo xoolaha duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku tala galay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado marka seeru u sameeyay fardahan militarigu wato de raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkoodu ugu cuslaanin wadooyinka isku xidhan min China ilaa Baghdad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeru ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo wuxuba inay galaan la ilaaliyo dhul lama degaan ka samaystay oo ugu tala galay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaan oran karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulku dagay uu kaajay kaasi waa qaybta koowaad ee diyaar garowga qaybta labaad ee diyaar garowga ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaar garow aan lagu aqoonin dawladii Tataarka hore dawladda Tataarka hore waxa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatul aalam hal qura inuu dunida nin qura ka taliyo wixii kala dhamina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyadana ma yaqoonin way niman reer baadiya baa reer miyigu inta badan afkan nifaaq ee la isku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqa waadix ah ama la istilo ama la kala nabad galo laakiin ninkana wuxuu bartay luqada diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dawladii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyay gaashaanbuurta uu sameeyay waxa la waday xaqaankiisii weynaa ee Manko Khan way Manko Khan bay yiraahdaan markii koowaad 651 buu waxa aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tagi karaan qoran oo wada xaajood la sameeyo diblomaasiyiintan waxa soo diray Louis XVI oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii Faransiiska oo ah Louis kii sagaalaad la oran jiray 648 markuu jabay mar labaad muxaawalo wado 3 sano kadib ayuu u dirtay safaarad uu la hadlayo wali nimanka Tataarka muslimka inay wada weerari karaan safaaradda tan waxa hogaaminayay raahib caan ah oo taariikhyahanada wax qora kamida waliba nimanka Tataarka wax ka qoray kamida oo la yiraahdo William Robrick oo Dominikiya ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama wali aqliyadii ahayd al-qutb al-wahid nin quri you will be either with us or with the others aqliyada abay haysteen aqliyadii maadaama uu rumaysnaa Manko Khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiiradan u yimi waayo isagu wuxuu yaqaano quri sidiiqu waa cid taabica u ah saaxiib waxayn cidii dawladiisa soo gashay raacda haddaad dawladda soo gali weydo cadawgaad ka mitay saasoo quru u yaqaan laakiin boqoradii reer galbeedna ee soo hadhay tabicinimada ma aqbalin inay raacaan tawaadiideen
laakiin waxaa jira boqorro yaryar oo kristan oo tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaaye yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haythamkii koowaad la odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayey cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey qaraqorum mongolia caasimaddii tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu u soo dhoweeyey manko khan waxaa loo sameeyey soo dhoweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dawladdan u hoggaansamo u raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dawladda taageersanee raacsisan inuu ka mid yahay haythamka koowaad wuxuu manko khan u oggolaaday kow boqorka iyo wuxuu hantileeya gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo u soo oggolaaday kanaa'ista iyo adiiraadku yacnii meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxationa inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo u soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ay ka qaadeen salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa qudhee buu u oggolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahay arrimaha gobollada markaan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo oggolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armeniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamulislaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan baabilmucaamalaat dowladda tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu oggolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inuu ninkani wada hadal la sameeyo oo la soo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto tataarku xoog weyn may ahayn laakiin waa caamil nafsi ah gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo 30 dowladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militarily laakiin waxay ka mid tahay bihaylihi wa hayliyaamihi inaad dunidoo dhan baa ku soo weerartay marka lagu yidhaahdo hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilf iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dawladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku talagalay inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badan oo muslimiin inay dawladda weyn iyana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaa soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ama xilfi wadaag ama xilfi istraatiiji aan wada leenahay waxba ku kordhin maayo imise dawladooda yaryar baa maraykanka la leh xilfi istraatiiji iyo xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc min atabiciya inay aqbalaan diblomaasiyaddaasaa bilaabantay qoladaa yarna masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel manko khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xad uu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makika batriiqii la odhan jiray oo baqhdaad kristanka jooga batriiqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manko khan uu waday manko khan uu sii ballaadhiyey georgiya boqortooyadeeda iyana xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiin oo aad u tiro badani inay usoo kala dheereeyaan ilaa xadaynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira
فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين إلهي وحول كوا قلبك كبك وحد أركيسا iyaga u kala dheeraynaya gaalada iyo la xidhiidhkooda oo leh mushkilad ummadda qabsan lahayd baanu ku badbaadinaynaa iyagoo shaqeynaya laakiin dantu ay tahay qulubtooda marad uu ku jiraa bay ugu kala cararayaan waxaa bilaabmay boqorro yararoo badan oo muslimiin inay ku xidhmaan dawladdii mongolianska maxaa ka mid ah badruddin lu'lu waa boqorkii muusul meesha la yidhahdo ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayay hoolaaku u tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa 200 oo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badinayna dawladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiita markii la caleema saarayay dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsanaan الraabic dawla salaajiqadii arsalaan الraabic waktigii dawladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin ba uu la baxay cizudiin kakaws baa la yidhaahaa labadaa boqor ee salaajiqadayhina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dawladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashq boqorkii ka talinayey isna xagga dambe uu ka soo wareegay dawladdii manko khan ee tataarka ayuu isna xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahdo alcaziiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaako hurin ka mida la yidhi hogaami boqor muslima inankii ayaa wuxuu hogaaminayaa ciidamada hoolaako hurin ka mida ayaa la yidhi hogaami waxaa kaloo yimi suuriya xums al-ashraf al-ayubi oo isna xums jooga si uu dawladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya aan tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin al-ayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin al-ayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa u soo cararaysa waxaa ka mid a dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hogaamiyaashaba ka ahaa provinceski muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida maalan turkistan iyo maa waraa'i nahar oo dhan nin mascuud yalvash la yidhaahdaa haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan waa qoladii la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayey ee meelaha uu dhiibtay waa maamule meeshaasi maamula oo uu dhiibteen tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiina oo jaanibka tataarka ka dagaal gelaya waxaa ka mid ah dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamiga baa xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa mu'ayidiin alcalqami mu'ayidiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay 42kiiba wuxuu saaray madaxnimo ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutaطarif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicada iyo muslimku islaynayeen dawla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen oo intaasoo hawro oo calawiyiina bay 500 sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo cali ibn abi aalib iyo cabaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dawlad ahaan iskumay fiicnayn markaa shiicadu aad bay uga cabanaysay dawladdan cabaasiyiinta si kastaba ha noqotee ra-iisul wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay hoolaako intaa waxa sii raaca oo hoolaako waxaa la weydiinayaa inuu fudaydiyo
ciidanka tataarku siday u soo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayi maysid baa la yidhi majlis alxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasada waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dawla alcabaasiya markii khawaarzimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taagtaageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaau min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna cidinku difaaci mayse waxay noqotay adna qaar lugta ku qabtoon in lagugu itixaamo isba dawla alkhawaarzimiya iyo muslimiintii milyanka loo dilaya aan ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama samarqand ama bukhaara markii la tirtirayay umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badani u ku soo baxaan boqorradii karamaan ka talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaatuddiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaluddiin kii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaalii markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaatuddiin waxaa loo diray maxay qaraanqarun baa loo diray iyadoo lagu bishaaraynayay inan kale oo uu boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaahayso way soo socotay qutbaddiin mid la yidhaahdo meesha joogay iyo nin kale oo ku loolamayo abibakar la odhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfi wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meeshay mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaafa alcabaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayaddu dadka ciidamada wuu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liina dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yiin laakiin waxaa laynaga dhaadhiciyay teknolojiyadu xadkay gaadhay midhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantay haddii sida kale loo rogo wuu akhriyi karaan waxa meesha kaga qoran waa dacaayaadku markaa dadka way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aada u cajiibah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaasi ay u faafi karaan kow dadka badh malaa weylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay jenkiskhan dee 30 sane hadda ka soo wareegay jenkiskhan 617 bay ahayd markii uu weylaadka ugu waaweyn dhigayay iminkana waa dhowr iyo 50kii 30 sane ka soo wareegay dadkan cusubi malaa aada u garan maayaan jenkiskhan sheeko ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yaryar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqageliya oo rucbiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen waqooyiga ciraaq oo dhan meelo ka mida duulimaadyo ku qaadeen saruuj sanjaar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen qaafilaad ay lahaayeen dawla alcabaasiya iyo dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhaheen hal qaafilo qura ayay 600 oo kun oo diinaar ka dhaceen waa tajmiidul amwaalkan oo kale adigu wixii xoola lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaanyahano wakhtigaa dee iclaamka ugu badanay gabayga iyo wixii la midu ahaa waxaasiyoo tirinaya ammaanta nimankan tataarka iyo weeraryahannimadooda dacaayaadka la faafin jiray maalan kutubu taariikh ay qorto waxaa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yani waa CIA bay leeyihiin iyo FBI khatara oo adigu meeshaad istaagtaba way kaa war hayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaadhi karo
dacaayadka la faafin jiray waxaa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuun bay galaan iyadoo aan laba ogeyn sida ay waxooda u sirayn karaan tataarka dacaayadka la faafinaya waxaa ka mid ah dumarkoodu sida ragga u dagaalamaan nin iyo naagkii ku hela waa isku mid askarta waa kaa takhallusaysaa dacaayadka la faafiyey waxaa ka mid ah tataarku wax nooloo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yidhi caalamulislaami oo dhammi waa kurbanaya nimanaan waxbaba reebayn wuxuu arkaba qof liqaya ee noolo ah waa khatar waa wax laga biqi karo waxaa la gaadhsiiyey inay yidhaahdaan tataarku maadaama uu wax kasta cunayo ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconayaa bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yidhi iyagu waa nimankaasi socda dacaayaddu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaquu qorayey waraaqahay u qorayeen boqorrada way gilgishay maalan bal ama hal warqadaydiin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mida boqorradii muslimiinta ah wuxuu leeyahay naxnu junuud ullah bina yantaqim miman cataa watajabbara wataqa watakabbar وبأمر الله ما أتمر نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد فيا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام وعدلنا في ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين المفر دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أسيرا تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون وعن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر أوراغض صغري سجعي عربادة وقت قاس سعودي أيان من أدبيها لنا وقرين وحلي أنه أسكرتي إلهي بانوني wixii kibre ee qooqa ee isweyneeya ee ilaahay amarkiisa qaadan waaya ayaa annaga ilaahay nagu cidhib gooyaa buu ku leeyahay askar ilaahay baanu noo wixii noocaasa waa gumaadnaa annagu buu leeyahay dhulka waanu halaagnay oo addoomihii waa tirtirnay oo dumar iyo carruurtiiba waa laynay war hoy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan warmoogga ahi xaggaasaa laydiin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdeedu waa mid faaftay seefahayaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoommaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxaa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta ayaa meelaha waraaqda loo dirayaa qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayay oo gaashaanbuur dhima isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan militaryli siduu u diyaar garoobay militaryli diyaar garowgiisa laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay hoolaako inuu boqorkan muslimka oo aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay sidiisa kale waa iska wadaad miskiinah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka o dhan siiyey
ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leeyay wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin si ay u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii markuu meesha joogay 100,000 oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey 10,000 90,000 baa la sii daayay weliba waxay leeyihiin 10,000 waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay dadka wax ka weydiistaan yacni askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kathiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisul wasaarihii waddanka laakiin doctor raghib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir lama qabe waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta khilaafadu uu sidaa u eg yahay ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaaggaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana khilaafa alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami waa dowlad 500 oo sannadood soo jirtay waa dowlad dunidu ay ku xisaabtanto waa magaalada dunida ugu dad badan leh 3 milyan oo qof baa baqdaad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu maktabada badan leh ugu aqoon-yahan badan ugu farsamo yaqaan badan ugu technology sarraysa mahma uu sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi alcaalam alislaami idan ku xisaabtan militariyo aad u tiro badan bay leedahay sidaa awgeed ayuu wuxuu dalbaday hoolaakoo ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn wax allaaliya wuxuu u baahan yahay waxaa amar la soo siiyey kow ciidamadii beershiya iyo adarabijaan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu hoolaako galaan oo dagaalka xaggaa ka galaan waxaa kaloo la faray bato ibnu jaajo ninkii aynu lahayn ee wawowga u ahaa jinkis khan oo dowlad gaara iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan volga la yidhahda iyo agaarkeeda ayay dowlad nawcun maa dowladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu bato xukuma bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysaa bato wuxuu soo diray isagana ciidan 3 inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxaa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii yurub loogu tala galay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxaa la yidhi ciidankoo dhan dib u celi dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad khilaafa alislaamiya baqdaad dib u gal baa la yidhi isagana bijo in 1 kilomitir ah buu baqdaad u jira amarna waxa lagu siiyey inuu dib u noqdo 1,000 kilomitirna muslim baa degan 500 kilomitir meelahaasi oo dhulka turkiga ah 500 kilomitir oo ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dowladihii yaryaraaya ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meeshay ka telinayeen shaamiyiintu qaybtay ka telinayeen ee ayuubiyiinta ahaa muusa 5 aynu lahayn badrudiin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryar oo islaamiya laakiin waxaa la faray intaasoo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yidhaahdo baqdaad inuu ka dagaal galo waxaa kaloo ciidan laga soo ururiyey boqorkii armeniya hetham
isna wuxuu keenay ciidan ka socda waddankiisii boqortooyadii yarayd ee Georgia Kuruj iyana xilfoodaagga la gashay iyana horin kale ay soo dirto ciidana oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meesha ay khilaafadii ay khatar tahay dawladdii weynayd ee China ka talinaysay dib baa loogu noqday waxa la yidhi ciidan si gaar ah u tababaran baa loo baahan yahay kun nin oo gantaalada dabka sida tuuri yaqaana baaladan wax lagu gubo oo China ah ayaa iyana China laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa China laga soo diray intaasoo ciidana ayaa la isugu keenay dabeetana saddex qaadadii macruufka ahayda ayaa la yidhi baa hogaaminaysaan dhammaantiin waxaa hoos tegaysaan baa la yidhi Holeko saddex nin oo qaadadii macruufka ahaana wuu wataa waa Holeko oo ciidanka qayb wata katabqa waa oo nin ka mid ah ciidamadii tataarka weliba geesiyadooda waaweyn isla markaana isagu masiixi buu ahaa katabqa taariikhda haddaad dib u daraasaysaan waa qitas ninka isheleen tataarka waaga la soo jebin doono caynu jaaluut macrakada la yidhaahdo goobahaasi xagga qoladan gaalada ninkii hogaaminaya weeyaan katabqahani marka waa nin masiixiya isla markaana tataara hogaamiyaashooda waaweyn ka mid ah katabqana qayb baa loo dhiibay qaybta saddexaadna waxaa wata bijo oo ah qaa'idkii Yurub inuu furto lagu talagalay saddexdaa qaa'ida waaweyn baa wata ciidanka tataarka mushaarikiintii yaryaraana waa dhex socdaan oo uu ka mid yahay de الناصر يوسف أمير دمشق isagu inankiisii alcaziiz iyo ciidan watuu soo diray oo meesha ka qayb galay boqorkii muusal badrudiin lu'lu firqa koox iyana taageerto oo militariya buu soo diray maxaa la yidhaahdaa karmaankii joogay qutbudiin waxoogaa kooxuu soo diray inankii uu dhalay sacd ibn abi bakar oo isna meesha joogay waa nin ka mida karmaan kuwii isku hayay boqorradii yaraa isna ciidan buu soo diray طوائف يريرو مسلمين iyo كريستيان iyo ciidamo yaryaro kale oo tiro badanina meeshay marayaan waxa soo ciidana la isugu keenay muslimiintii tirada badnayd ee Turkmenistan iyo dhulka deganaydna ciidamada leeyahay marka meesha tan caalamka oo dhan baa maraya askar muslimiina guutooyin gobollo islaamiya ka socda guutooyin gobollo kristana ka socda iyo saddex guuto oo waaweyn ama saddex ciidan oo waaweyn oo ka socda nimankii la oran jiray tataarka ciidanka inta leeg bay isugu yimi waxa jirta markuu ciidankii soo dhaqaajiyay ayuu Holeko mas'ala kale ka fakiray oo ah luuq yar baa u dhaxeeyay isaga iyo Baghdad oo ay degan yihiin nimanka shiicada Ismaaciiliinta la yiraahdo xashaashiinta dabeetana wuxuu yiri armay nimankan rabshad kugu keenaa mala waxa fiican intan inaad cagta mariso ka takhallustid shiicadii meesha joogtay ayuu weerarka ku qaaday shiicada meesha tani waa niman aad u dagaalyahanaa bay ahaan jireen dhul buuraley oo khatarna degan qalcadoodii ugu weynayd markuu dagaalka ku qaaday ayaa taa'ifada ninkii hogaaminayay ayaa soo baxay ruknudiin nin la oran jiray baan filaya wuxuu dalbaday inuu heshiis la galo Holeko intan dambe nin siyaasi oo noqday heshiiska waa ka aqbalaya buu yiri laakiin qaa'idkiisii miidaaniga ahaa ee ciidanka hogaaminayay ayaa diiday dabeetana dagaal bay ku qaadeen qalcadii way furteen wixii ku jirayna waa laayeen ruknudiin oo shiicada haysta wuxuu codsaday shiicada inta kale Ismaaciiliyiinta oo dhan heshiiskan qaadanaya ee heshiiska la iga aqbalo saasaba la yidhaa Holeko khita kale uu dago wuxuu yiri khalaas waan aqbalay لكن بشرط شرطنا كو أقبليا وحويان وليبا تاريخي هنادو شرطك كان مركا كور رميان قصة ربضا بيشيغا كو طائفة تاني إسماعيلية دا ليدا هذا دقال الذي يجي يتطار كالنحمري وحي ديلين شكتاي نكي لورن جري يجا لوتريا اينا جنكس خانها عيدا مدن هولاكو ووضنا waxaa la socota
jagtaygaasi inanuu dhalay oo amiirada oo aabbaheeda inay u aarto raadcaynaysa dabeetana waxay istidhi iyaduna halkan aarkii wuu ka dhadhow yahay inaad aarkaa hesho ruknuddiin waxaa la yidhi waxaanu kuu diraynaa qaraaqorom boqorka heshiiska la soo gal qaraaqorom baa loo diray manko khaan markuu yimi manko khaan wuu xanaaqay la kulmi maayo buu yidhi hoolaakana wuxuu ku yidhi fardaha tataarka inaad dariiqa intaa leeg soo mariso soo daaliso iyagoo waxaasoo kala wado aad ii keento may ahayn buu leeyahay fardaha tataarku inay sidaa u daalaan iyagoo ninkan oo kala wada maaha buu yidhi waxa dib baa loo soo celiyey ruknuddiinkii meel dhexe markay marayeen ayay madaxa ka gooyeen si aan la garanayn ilaa hadda taariikhdu ma sheegto sababtii lagu dilay laakiin meel dhexe markii la marinayey ayuunbaa laga takhallusay daa'ifadii ismaaciiliyada oo boqorkoodiina la dilay ayuu hoolaaka wuxuu ku yidhi heshiiskaan idinla galay laakiin hal midaan idinka rabaa waa istiro badiseen oo wasnigaa leediin wasni aan ahayn miisaankiinna iyo xajmigiinna awood aan lahayn baa sheeganaysaan heshiiskaan idinla gelaya laakiin waxaan wax idinku siinayaa awooddiinna markaa soo bandhigtaan intaa ay leeg tahay saa daraaddeed waan idin tirinayaa tiraan wax idinku siinaya shiica ismaaciiliya tiradeedu intay leeg tahay baan wax ku siinaya waxay idhahdeen nimankii shiicada ismaaciiliyada maanta wax laynoo ogolyahy xooggeenna aan muujinno maxaan samaynaa meel kastoo ismaaciil jira ha laga war doono shaam kuwii deganaa qaar baqdaad meel kastoo ay joogeen waa laysaga yimi waayo waxaa laysleeyay maanta xoog baa helaysaa markay isu wada yimaadeen ayuu gunta ka gooyay xabadba kama sii dayn hoolaako shiica alismaaciiliya waktigaasaa taarikhda ugu dambaysay war dambe ay leeyihin aqa khaankan iyo midharhkan meelaha marmara ayaa ka soo hadhay laakiin hoolaaka intuu ururiyo meel isugu wada geeyey markuu isla helayna madaxa ka gooyo dhammaantood diray shiicadii markuu meel ku hubsaday oo waxay yidhahdaan madaxdoodii qaar ka mid a ama raggoodii waaweynaa inantii jagtay uu dhalay salqaan baa la odhan jiray zalqaan khatuun ayuu u dhiibo u qaar yidhi kuwaana aabbaha u lah dabeetana iyana aabbaheed bay koo xullaysay 655 ayaa shiica alismaaciiliya la baabi'iyey waxaa bilaabmay dagaalkii baqdaad markuu intana ka takhallusay hadda wuxuu joogaa baqdaad siduu shaqo uga qaban lahaa shirweynaa loo fadhiistay magaalada hamadaan la yidhaahdo ee faris bershiya ku taalla ayaa shirka lagu qabtay 450 kilomitir ayay baqdaad u jirtaa shirkaa waxaa lagu go'aamiyey kow ciidanka in 3 qaybood laga dhigo qayb uu hoggaamiyo hoolaako qalbiga ciidankana uu noqdo imdaadaadna la siiyo siiba imdaadaadkii ama taakulayntii ka timi alqabiila adahabiya ama golden hortka qolada la yidhaahdo oo ubato ibnu georgi uu hoggaaminayo oo gobolku xukumayaya wixii taakulayna ka timina adugu kaxaysaa la yidhi weliba ay kula socdaan armeniya iyo georgiya wixii ciidane ka yimin ay kula socdaan intaasi waxaa la yidhi waa wadnaha dagaalka wadnihiisa inta ka qayb galaysa hoolaaka hoggaaminaya ciidanka labaad waxaa la yidhi koonfur bari baqdaad ha ka soo galaan ciidanka koonfur bari ka soo gelaya waxaa la yidhi katabqa ayaa hoggaaminaya isaga waxaa la amray inuu socdo meeshu waa dhul buuraleeya ciidanka intan leegi ma wada mari karaan in la kala qaybiyaa baa la rabaa dusha ka wareeg baa la yidhi iyo dhulka suhuusha ah baqdaad adigu xagga koonfureed ka soo gal baa la amray ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday anadol turkiya xaggeeda sare waa ciidanku bijo ninkii la yidhahda hoggaaminayey waxaa la amray 1000 kilomitir intuu soo jaro inay isku wakti soo galaan magaalada baqdaada taarikhyahanadu waxyaabaha cajiibka ay sheegaan waxaa ka mid ah 1000 kilomitir ciidan socda oo dhul socda oo diyaarada iyo wax ilaalinaya aanay jirin ama waddada uu hagaajinaya aanay jirin oo aan la kulmin wax kamiina wax dhul jiifa wax meel u galay waxba aan la kulmin oo 1000 kilomitir ba dawlada yaroo islaamiga ay degan yihiin oo haddana socodka dheeraynayo isku dayaya nimanka hamadaan ka dhaqaaqay inuu kula tago isku wakti magaalada baqdaad uu kula tago
isla markaasi ma jiro muwaasalaadkan hadda cusubada telefoon iyo taar iyo wax lagu wada hadlayo farda wata la rabo fardihiisaasi inay mar la galaan Baghdad ciidamada dhanka ka soo socda laakiin dhulka uu marayo waa salaajaqadii aan sheegayay Mosul buu soo maray oo odaygii Badruddin Lu'lu ciidanka soo diray oo haystay waa oday 80 jir taariikhyahanada qaarkood baa waxay dhaawaa 100 jir aakhiru sii jeedaa haddana gaaladu daba socdaa uu gargaaraya Baghdad markii la qabsaday 3 bilood kadib baa filayaa buu dhintay kani Badruddin kani maca dalika aakhirada ciidama xasuusnay tataarka la arkaa xagga tataarku kaga jira magaalada Baghdad waa magaalo leh qalcaad xusuun tiro badan oo adag oo ku wareegsan waa magaalo 5 qarni dawladdan ay ka talinaysay waa magaalo uu joogo khaliifkii 700aad baa jooga oo boqorkii 700aad ee muslima ayaa ka talinaya laakiin dhufaysyada iyo hubka iyo xusuunta hadday rag waayaan haba ma tara almustacsim billah waa nin noloshiisa marka la eega bay leeyihiin nin fiican quraanka akhrista ay leeyihiin caqiidatu salaf buu haystay cibaadaadka ku fiican faqarada wax siiya laakiin waxaasi waa naftiisa ummadda wixii aan ficilha muu hayo ummadda waxa anfaca qaa'id soo jeeda dunida waxa ka socda garanaya balaayooyinka ku xiiran ka fakaraya taktiik fahamsan iyo qaab uu diyaar garo kaas anfacaya dadka ولذلك ابن كثير مركو نكن كورمي وحليه كان حسن الصورة ننقرح بدن بوها بويلي جيد الصريرة تاريخ دي سيالابتي شيء في عنتهي صحيح العقيدة عقيدة في عن مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل أبيه كضيري حق عدالته صدق بدن علماء الشرفة iyo dadka cubaada ah madhab salaf sunniya ku sugan laakiin madhab salaf in wax la iska celiyaaba ku jirtay xaqan un cibaadada iyo intan buu kaga sugnaayo baabkii loo baahna kaga ma sugnay غافل عن السياسة بو هابا هذا وضعك waxa ka socdana si fiican uma garanaynin ragga sida loo kala doortana si fiican uma garanaynin raga baa joogay oo kamid yahay adeerkii al-Khafaji ninkii la oran jiray oo kamid yahay rag badan oo raga jiray laakiin ragga ahaa waa la durkiyay mujaahidiin aybak baa kamida mujaahidiin aybak iyo muayidiin al-alqami qalbay ahaayeen kan shiiciga aba kor loo soo qaaday kan kale waa la durkiyay idan muulahayn aragti siyaasi oo dheer muulahayn kafaa qiyaadiya sida uu Dr. Raghib Sarjani leeyay muulahayn himma koraysa muulahayn geesinimadii qaraarada lagu qaadan lahaa waqtiga kana adag muulahayn buu leeyay krismihii uu baahnaa inuu ummadda ururiyo oo dadku ay ag joogaan muulahayn buu leeyahay ragga sida loo miidho ama loo doorto ama loo xusho 16 sanadood waa in laga diyaar garoobo way ahayd intuu boqorka ahaa 16 sanadood oo sanadkiisii 17aad in laga diyaar garoobo way ahayd ma sadhicin ee waa ka askartiisii beeralayda ka dhigay iyo sanaacinta maxay ku gabagabowday markaa waa madax ummadana aan diyaar garaynaynin kursigana aan ka kacaynin waa kuwa maanta joogow qofku waxay ahayd ama inuu shaqada u qubo ama inuu baneeyo cid kale oo u qubi karta tago anaana fadhinaya waxna tari maayo qaacidada bay joogtay raggu doortay waa kuwan khiyaameynaya ee ninka kan kolba u tagaya magaalada Baghdad 3 milyan oo qof baa jooga culimada dunida ugu tiro badan baynu oran karnaa baa degan waa dhul raaxo culum nadariyo tiro badan baa taala waxay maqleen wixii Afghanistan ka dhacay wixii madaabix ka dhacday wixii dawlad al-Khwarizmiya ka dhacay wixii muslim la laayay inay wax ka taraan daayada iyagaaba kala qayb galay mararka qaar kood sida la sheegay dawlad al-Khwarizmiya sidii looga takhalusi lahaa maadaama iyaba ay ka tataarka ku caawiyeen in laga takhaluso iyana kuwii ag joogay baa waxay ku caawiyeen in iyaga laga takhaluso محرم 12 markay ahayd
656 هجرية وسنة كي 656 هجرية بشي كواد محرمة لبية تبن كيدي مركي مريسي أيوم باو حلا أركي دنك بري مقالة بغداد isagoo ciidamadii hoolaku ay taagan yihiin oo uu bilaabay inuu dhigto madaaficdiisii wixii gaarmi lahaa dhanka koonfur barina koonfur yani bariga oo koonfurta raacsiisanna katabqaaba ka soo galay markaasuu boqorku hambaabiray dabeetana ijtimaac taari ah kulan degdega ayuu qabtay kulankii degdega ah baa laga wada hadlay kulanka qolo waxay leedahay aan la heshiin oo isdiibno oo nabadgelyo arrinta ku dhamayno waa fariiq uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihi wadanku Mu'ayyid al-Alqami laba nin oo kale nin la yiraahdo Mujaahidiin Aybak iyo nin la yiraahdo Sulaymaan Shaahna waxay leeyihiin ruuxaas wax lagu hadla maaha aan jihaadana wax iska celinno وعندنا النبض وحين وسين ما يسي أن دفاعتنا ودقالنا مدور رأيي مركي للرقرقي بغركم ما دام أن نسكن يدفع عنها كون جهات كشاقي وسكن راعي وحلوا يا وحسك علن دبتنا مجاهد الدين أيبك ينكي لسعود سليمان شاه بالا يدي عيدا ديارية نمانكي مركي عيدا كي ديار قروبين oo xaggan xusuunta ay ka samaysan tahay iyo qoladan in laga hortago loo diyaar garoobayo ayaaba waryimi leeyay alambar baa la maraya ciidankii Yurub ka soo galay isna halka maraya meeshan ambar imka la yiraahdo Ciraaq ayuu maraya waa meel aad u dhow aan waxba u jirin waana dhul banaan oo dabeetana waxa la yidhi xogaaga ciidankii la ururiyay war bal qolada waajaha Mujaahidiin uu soo baxay isagoo ciidankiisii wata wuxuu ka hortagay biijo iyo ciidamadii dhankan Yurub ka soo galay ee 1000 kiiloomitir soo socday ayuu ka hortagay laakiin nasiib darro trainingku hadaanu fiicnayn oo si fiican taktiigi military waa laga tira badiyay waa uu tallaabay wabigii bay yana ka soo tallaabeen meel dhoobo oo mustanqacaat oo biyo fadhiisin oo xagga shisha looga maray sidii wax jabay baa la isaga dhigay ciidankiisii wuu soo eriyay kooxdii bay ka daba yimaadeen injineero ciidanka la socday biijo wato ayuu diray xagga dambe ka wareegeen biyo xidheennadii ku xidhnaa meesha waa la faruuray oo biyi waa la soo daayay si wadankan oo dhan dhooba ay uga dhigaan jusuurtii meelihii laga tallaabayayna waa la jabiyey markii ciidankii tamdiya maxaa la yiraahdaa taakulayntii oo dhan laga jaray xagga dambe wabigii la faruuray ayuu ciidamadiisii ku soo jeestay dhoobo iyo meel aan farasba ordin la limanayo ayay joogaan gamtaa loo joogsaday Mujaahidiin Aybak iyo in yaroo la socotay mooyaane ciidankana waa laga takhalusay dib ay u soo noqdeen iyagoo firdhaday Baghdad soo galeen iyadoo waxoogaagii ciidankii la ururiyayna biijo uu bada ku cabay ka soo takhalusay waa ciidan goobta lagu dagaalamayo dhulkiisii ay tahay haddana looga aqoon bato lagu khiyaameeyay waa dhulkiisii waa Ciraaq gudaheeda lagu dagaalamaya laakiin waa looga taktiiki badiyay dabeetana iyagii baa meesha ku jabay Baghdad buu soo galay waa 19 Muharram baa dagaalkana dhacaya biijo ayaa hore u soo socday isna dhanka waqooyiga ayuu magaalada Baghdad ka soo fadhiistay magaalada Baghdad marka hadda waxa ku xeeran saddexdii ciidan iyo wixii ay wateen Holako oo bari jooga Katabqa oo koonfur bari jooga iyo waqooyiga oo uu joogo ninka la yiraahdo biijo jalsa labaad baa loo fadhiistay ibn al-Alqami markii Mujaahidiin Aybak iyo kooxdiisina ay soo jabtay boqorkiiba ku noqday wuxuu leeyahay kama maaranno diblomaasiyada inaynu haatan bilowno isticmaalno طاولة المفاوضات ميسكا وذا هذا الكان تجنو ورك لما يالله لكن ميسكا وذا هذا الكيا وذا هذا الله تاريخ ذا بني آدم مفاوضات كويا دحمران لبني نوح جن هذي مفاوضات دحمران وح عقلك جلاك صباحه
لكن مسكين ينن مرغي حوغان هدي مفاوضات دحمره مفاوضات كدواوني أقبل إلا واحد كده ما يهدد أقبل ويدوك بربريني وياني مفاوضات ولقى هداد بقشة مفاوضات بعد عيا فلسطين يا إسرائيل مفاوضات كستور دحمره محاكا صوابها هشيس أي تنازلات سمايين فلسطين تو هذا هو وحي صوابها إسرائيل فلون ويدا مركز سوى على مفاوضات هلا عصبونيسيو هي دب الله عصبونيسيو محاكا صوابها شروطا بي صو حدان كون با سو تنازله والله سو صحيحه وي فلين ويدا اسرائيل هذا با لا مفاوضات صدحات مفاوضات با سوده كو كستو بلا معنا وتنازلات هاتتن مقالده waa حصار bay ku jirtaa مفاوضات baana bilaabmay مفاوضاتkii iyuu dirtay boqor u fiirso boqorkan halka ay joogto siday taariikhyahanadu leeyihiin labadii nin aynu lahayn hoolaakay hoosta kaga xidhnaayeen ayuu wuxuu u diray inay noqdaan mufaawadiinta dhankiisa ka socda waa kuma waa mu'ayyadiin al-alqami iyo batriirikii mekako la yidhaahdo kiniisadii kristanka ee joogtay baghdad batriirigeedii mekako iyo mu'ayyadiin al-alqami labadaasaa la diray inay mufaawadaadka hoolaaka la soo galaan هلاك لبدودي markay u yimaadeen wuxuu yidhi dhageysta adiga waxaan kuu ballan qaadayaa wax masiixiya inaan la taaban kaniisadaha waxa goor inay ku badbaadaan wixii lagu siin karaan lagu siiyo adna waxaan kuu ballan qaadayaa Baghdad maalintan gacanta ku dhigo majliska xukuumaya ayaan madax kaaga dhigaya Baghdad imika ra'iisul wasaarad ka tahay marka Kanada talin doonaba meesha qabsanaya maxaa tala amarka dawladda waxa korkeeda saaran horta labadii nin ee dagaalamay iyo kooxdoodii in la keeno shayga koowaad mujaahidiin aybak iyo Sulaymaan labadaas waa mutatarrifiin iyagu ahlu tatarruf ee dunida laga ma ogola labadaasi waa inay soo xira galaan ثانيا natiijadii mufaawadaadku waxay noqotay markaa dagaalka oo la joojiyo nabadgelyo dhacda هولاكو oo ogol inantiisa inuu bixiyo oo boqorka inankiisu guursado boqorka almustacsim billahi kursigaan adigana ku daynaya buu yiri reer Baghdad oo amaansi waxani waa wixii uu hoos ula galay wixii aan idin sheegayo hore waa wixii uu hoos ula galay labada nin laakiin mufaawidku muxuu u geynayaa boqortooyadii waxa loo keenay ninkii heshiis baan ula galay heshiisku muxuu dhigayaa dagaalka in la joojiyo nabad la qaato هولاكو inantiisa inankaaga loo guuriyo si nabadda loo adkeeyo reerku u xidado kursiga boqortooyada in adiga lagu daayo aad boqorkaaga ahaato reer Baghdadna amaan in la siiyo intaasi waa inta iyagu helayaan shuruuda ku xidhan maxay tahay laakiin bishuruud ayna shuruudatan fulisan intaasaan anigu aqbalay buu yiri Hoolaako laakiin shuruudan ba fulinaysan waa maxay shuruudu وحلالية وحقلعة بغداد كويا لا وين الدمسان شرطك كواد شرطك اللي بعد واحد وحلالية وحخنادق جودات كدوفيسية ده الذين ردن وين للدمية شرطك اللي بعد واحد وحي هوبا إن لسوديبه صدحات وحي هوبا إن لديبه شرطك أفراد قدام بيانه وحويان إن أقبشان دولة دجود تتارك قراقرم عاصمتdeedu tahay ina hoos timaadaan raaciyada ina ku biirtaan intaas hadaa anagu wax kale uma soconno wala kale anagu waxaan u soconnaa inaanu cadaalada sugno xorriyada iyo amaanka inaanu ilaalino qaabkaas aanu soconnaa taariikhdu waxaad moodaa page hore jiray dib loo qoro ma aha taariikhda bini'aadamku waxa taariikhdan bini'aadamku in aadamu weeyaan waxaan dunida jooga waa aadam iyo intuu dhalay god aan hore loogu soo jabin ma jiro ilaa iyo maanta godadka jooga hadda taariikhda dib u akhrido waxaan tan u akhrinayaaba ma aha inaan idin raaxeeyo oo muslim baaba ay idin ka raaxeeyo laakiin waa inaan idin tusiyo taariikhdu beejaj la rogo inteeda badan inay tahay Iraq Soomaydan maqlaynin waxa lagu qaaday hubka in laga mamnuuco hubkeeda inay gubto United Nations in loo soo diro waxa hubleeday inay gubto cunaqabateen lagu sameeyay kan lagu sameeyay muqaabil dalika waa maxay nabadgelyo la idin siinaya kadibna in xilfi wadaag Maraykan soo samaysto dabeetana biduuni qaanuun in lagu qabsado
كل ذلك تاريخ بني آدمku بغداد سقوطkeedii shalay ahaa iyo kii dhowr boqoloo sannadood 800 sano ku dhow ama 900 sano ka hor dhacay waa isku waji eegin 800 sannadood beejku dib unbuu isu soo rogay boqorku si aanu mufaawadaadkaasi talakuba uga samaynina garaacista lagu bilaabay in magaalada garaacistu ay ku socoto bishii safar loo odhan jiray bilowgeedii baa waxaa la bilaabay 4 maalmood in garaacis xooga lagu sameeyo magaalada ibnu kathiir wuxuu sheegayaa daartii boqortooyada square laga qabtay buu yidhi dabeetana gamuunyahanadii baa gamuunka ku ganay gamuunku waa leebka waa dee waxyaabihii la isku garaaci jiray madaaficda ugu waaweyn baa lagu ganay taarikhyahanadu waxay sheegaan boqorku wakhtigaasi jaariyadihiisii mid ka mid a cayaaraysay inan carafa la yidhaahda hortiisa ka cayaaraysay oo ahaa jaariyaadkii mulkul yamiinka lagu haystay joogay ayaa cayaaraysay taarikhyahanadu waxay sheegaan carafo boodboodaysa ayaa gamuun ku dhaca markaasuu boqorkii naxay hortiisa markay inantiina ku dhacday ayuu boqorkii naxay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan gamuunka lagu dhuftay waxay ugu soo qoreen bay yidhaaheen weedh ah idaa araada allaahu infaada qadaa'ihi wa qadarih adhaba min dawi lcuquuli cuquulahum baa ku qorrayd bay yidhaahdeen ilaahay hadduu doonayo arrinkiisa inuu fuliyo kuwa caqligala unbaa caqliga laga qaadaa waxba kala garan waaya dabeetana wixii la rabaa fula gamuun ay ku qoran tahay inantaasi ku dhimatay bay yidhaahdeen boqorku markaasuu kabashkabashta bilaabo wuxuu yidhi daahiyada guriga ha lagu badiyo waxyaabaha kana aanu gamuunku soo maraynin daaqadaha in la adkeeyo ayaa la bilaaba arrintii meel adag bay maraysaa alcalqami mu'ayadiin alcalqami wuxuu yidhi mufaawadaadka aan ku noqdo mar labaad ma bilaabaa boqorku wuxuu yidhi haaya adigu tag mufaawadaadka adigu iga aqbal wuxuu u yimi holaako mar kale mufaawadaad baan rabnaa inaan kula galno masaasa haa wuxuu yidhi keligaa kuma qaabili karo ee waxaan rabaa markaynu wada hadlayno inaad wadato magaalada culammadeedii rijaalul acmaalkeedii dadkeedii wajahadee la yaqaanay magaalada dadkii caqliga u ahaa waa inay kula socdaan haddaad doonayso inaan heshiis kula galo weliba boqorku waa inuu ku jiraa wuu soo noqday wuxuu yidhi ninkii holaako wuxuu aqbalay inaynu wada hadal samayno laakiin waxaa laygu xidhay inaynu xaashiyadeenno dhan intaynu kaxaysanno inaynu u tagno waa yahay baa la yidhi waxaa la soo kaxeeyey 700 oo ka mid ah magaalada baqdaad dadkii magaca iyo maamuuska ku lahaaya ee culamo leh ee tujaar leh ee waxgarad leh 700 oo nin oo ka mid ah waxaa la soo kaxeeyey qoyskii boqortooyada 17 ka mid ah dabeetana wuxuu yidhi holaako markii wixiiba soo baxeen waan idin kala dambaysiinaya kow boqorka iyo 17ka qoyskiisa ahi ama 17 idinka mida iyo boqorkoo quri ha yimaadaan inta kale xagga dambe ha ku sugto waayahay baa la yidhi boqorkii iyo 17 baa u tegey 700 kale wuxuu yidhi horta iyaga madaxa ka jara 700 kale madaxaa laga jaray boqorka waxba looma sheegin ciidankii raggii uu halkan kaga yimi iyaga wuxuu yidhi iga qariya 17kii u yimina wuxuu yidhi khaliifada boqorka waxaa laga rabaa inaad hadda amar bixiso reer baqdaad inay hub ka dhigaan boqorku haatan war uma yaallo waa inuu amarka bixiyaa ka labaad wuxuu yidhi boqorkana ha la xidho boqorkiina waa la xidhxidha maxaa loo xidhxidhanayaa adigu waa inaad sheegtaa baa la yidhi qasnadihii dawladda iyo meelihii waxyaalleen oo dhan si loo heli karo boqorkoo meesha taagan ayuu yidhi labadiisa inan soo qabto horta 3 inana uu dhalay axmed abulcabaas iyo cabdiraxmaan abulfadl ayuu yidhi ku hor gowraca isagoo taagan boqorkoo meesha taagan ayaa labadiisii wiila waaweynaa lagu hor gowracay kii saddexaad wiil saddexaad ou dhalo mubaarak abulmunaaqib la odhan jiray isaga wuxuu yidhi xidhxidha maxbuus ka dhiga 3 hablood ay boqorka walaalayiinna ku dara buu yidhi
halkaa markay joogto waxaa la yidhaha loo yeedho wixii baqdaad rag waaweyn ku hadhay ee culammadii ahlu sunna ah waa loo yeedhay xabaalaha la dulgooyaa la yidhao dhammaantood ha la laayo iyaga iyo dumarkoodaba waa la laayay ragga la laynaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekhii magaalada ou dhalay ibn aljawsi inankiisiiya الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وشيخ دار الخلافة ولا قورعي شيخ يسدح ويلا وداليبي ودا قورعين رجع ماشي اللي جو قورعي وحكم إذا لبدين إن الدجاليه هنكا مجاهد الدين أيبك يا سليمان شاه إيجانا وحليده هلا قورعو إيانا ولا قورعي وحلا قورعي دقي سو تربية خلافة صدر الدين علي بن النيار نين لا يراهضه dabeetana waxaa la yidhaha lagu xigsiiyo a'immada masaajidda khutabada xamalada qur-aanka waxaasoo dhan ha la laayo intaaba waxaa la laayay iyada uu boqorku xayi yahay oo weli nool yahay dabeetana ciidankiisii baa meesha lagu fasaxay waxaa la yidhi baqdaad ha la laayo 40 maalmood baa baqdaad wixii ku noolaay oo dhan la gumaadayay waxay yidhahdaan askari baa ku soo baxay 40 carruur oo hooyooyinkood la dilay isna 40kii buu gowracay waxaa la yidhahaa boqorka isaga oo ciidankaa la yidhi kubad ka dhigta harraato ku dhintay baa la yidhi sidii harraati loogu waday taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin isaga cidhibtaa lagu dilay sidii harraati loogu waday ayuu boqorku geeriyooday waxaa ka soo baxay meesha tan maktabaddii ugu weynayd ee dunida ku taallay maktabadda ugu weynayd dunida ku taalla baqdaad bay ku taallay waa maktabad haaruun urashiid oo asaaskeeda bilaabay dheeraadkii 170 ilaa 193 hijriyadu isagu maamulayay dabeetana waxa yaalay mujalladaadka dunida ugu tirada badan leh maxaad iyada ka sheegaysaa Trablus tii Lebanon ee ay gubeen waxa yaalay baa la yidhaha 3 milyan oo mujallad 3 milyan oo volume maxaad u malaynaysaa tii baqdaad iyadoo baqdaad maktabadda quri waxay lahayd dad nusaakhiin oo madbacadima jirina wax qora dad kutubta dadka u dhiiba dad mutarjimiin oo afafka kale ka tarjuma researchers degan meesha غرف wax lagu akhristo meelo wax la isugu dhigo xalaqaad ama meelo nadawaad cilmiya lagu qabto lagu niqaasho meelo ardadu ay seexdaan waa akbar waa maktabadii dunida u weynayd oo uu yaalo aqoonta dunida dhammaanteed af kasta ku qoran ha noqdo afkii yunaanta greega kii siryaaniga ahaa kii hindiga ahaa kii sakritiga ahaa farisiga laatiiniga kullu luqaat way yaaleen may odhanin maktabadda rara oo qaraa qorum geeya lama odhane waxaa la yidhi rara oo webiga dajla ku gura webiga dajla ayaa aqoontii reer nebi aadam uu kala dhexlayay maaha aqoontii muslimiinta qura waa maca greegii hore ma wixii bini aadam qoray muslimka waqtigan waxay lahaan jireen rag aqoon-yahanoo dunida loo diro oo shaqadoodu ay tahay meel kitaab dunida yaalluun inay arkaan soo qoraan kitaab kasta cidda haysta waa laga iibsanayay waana la keenayay kitaab kasta waa la tarjumayay ayu cilmi ha ku saabsanaado maktabaddii intaa leekayd waxaa la raaciyey webiga dajla waxay yidhaahdaan mudduu webigu khad dareerayay madoobaaday khadkii bugaagtan lagu guray fardaha lagaga tallaabiyey bay yidhahdaan webiga sidii maktabadda tan loogu guray 40 maalmood baa magaalada dadkii la xaaqayay waxay taarikhyahanadu sheegaan 1 milyan oo qof dad ka badan baa la dilay taariikhyadana qaar baa 2 milyan yidhaahda waxay yidhahdaan guryahu masiibku waa majaroorka halkan biyuhu ay ka dareeraan dadku markay cararaan ee guryaha saqaf ka fuulaan baa laga daba tegaysaa loo laynayo guryaha magaaladu dhiig bini aadan bay daroorayeen baa la yidhaahdaa dumarkii iyo carruurtii xagga sare kore iyo wixii sidii loo gowracayay guryihii baqdaad ku yaallay bay yidhaahaan sida roobka dhiig bay da'ayeen waxaa la tilmaamaa markii uu baqay xanuunna dilaaceen 40 maalmood kadib 40 maalmood wuxuu amray wax dhaqaaqa inaan la sii daynin aduu magaalo 3 milyan oo qof degantay oo intaasoo kunoo ciidan soo galeen oo qaradkuna yahay wax nool inaan lagaga tegin qiyaasun waxa ka soo baxaya oo maalin iyo 2 iyo 3 aan inay 40 cashaa 40 markii lagu waday ayuu ciidamadiisii wuxuu uga baqay xanuunadu inay laayaan markaasuu yidhi ka soo baxa ibnu kathiir wuxuu leeyahay dadkii taacunni iyo balaaya ka dilaacay
waman najaa min aلطacni lam yanju min aلطaacuun buu leeyahay ciddii birta ka nabad gashay daacuunkii baanay ka nabadgelin buu leeyahy baqdaad intii hadhayna kalooraa laayey daacuun baa laayey goorahan ba la eg fadhiyaan u malaynayaa marka waxaan ku gebagabaynayaa uun taariikhda maantu waxaan joogaa weji ah baqdaad oo dunida taariikhdeedii ka baxday waxay cilmi lahayd waxay culamo lahayd waxay dad lahayd waxay boqortooyo lahayd dhammaanteed la laayey xoogna aan lagu diline talaxumo muslim ku dhimatay muslim isqaybqaybiyey oo iyagu col ah heshiisna iyo xilfi wadaag la gelaya cidda kale midba uu ka kale kula duulayo taariikhda dhaxalkeedu waa kaa wakti kastoo ay sidaasi dhacdana ma aha inaan dadkan ku jirin dad cubaadi ama qaar ilaahay barya ama qaar salaad badan ama qaar caqiido wanaagsan xataa boqorkaa la leeyahay baa caqiido fiicnaa laakiin caqiido fiicni quri waxba ma tarayso haddaanay ummaddu wixii la faray aanay samaynin dhammaanteed haddaanay diyaargarowgii la faray aanay samaynin ummad kasta oo muslima oo iyadu isku jeesata oo istunta waxaa abaalmarkeedu yahay caasimadaheeda in gaala ka taliso waana inta maanta dunida ka taagan wallahu aclam billahi tawfiiq